boqor Raabi Yuusuf Cabdilaahi oo kamid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland ayaa cadeeyay in aan la aqbalin jeegan dambe oo ka dilaacda Muqdisho waxaanu intaasi ku daray boqorku in beesha garxajis dagaal loo cadaystay boqorka oo warramay Hadhownaag News ayaa xukuumadda u sibir saaray inay ka dambayso qorshaha salaadintu xamar kaga hadlayaan waana kan boqorka ugu horeyn ka hadlaya deegaanada ay deegaan dadka uu boqorka u yahay adanadii yeelay waxaan idinku yeelay inaad siiyo maanta waraysi waxaan ahay boqor garxajis deegaankaygu waxa weeye Hargeysa Barbara Ergaabo Burco Waqadara Oodweyne Salaxley Awaare Gaashaamo iyo inta ka dhaxaysiya inta baalaaba deegaankaygu waxa waxaan ka hadlayaa niman hadlayay maalmahan oo sheeko cusub oo aanan fahmin ku hadlayay maalmahan waxaan ahay taariifadayda ninkaan idin soo sheegay waxaan idin sheegayaa reerka garxajis la yiraahdo in dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisaba lagu xalaashaday magaca Soomaali weyn lagu dilay 18,000 oo qof ay kaga dhinteen rag iyo dumarba ah dhaqaalihiisa lagu baabiyay cirdigiisa lagu baabiyay xaqiisa wali ku maqan yahay doorashada markii la galayay ee halkan la joogay campaign-ka lagu jiray lagu hadaaqayay ninka garxajis codsiya waa nin xabad isku dhuftay ragga maanta hadlayana waa raggii waxaan u sheegayaa ragga inaanaan ilaabin godobtayadu halkay taallo wixiina lagu dilay ee dhiiggayaga lagu xalaashaday ummadayada lagu laayay ee biyaha loogu diiday inay biyaha wada cabaan magaalada Hargeysa loogu diiday biyaha inay wada cabto loogu diiday shaqada loogu diiday xaq waxay ugu lahaayeen dhulkooda in maanta ayar ay iska yiraahdaan nimankii jeegaanta samaystay xamar baan maantana jeegaan kala ka samaysanaya aadar ma dhacaso waxaan dhacahayn waxa ku hadasheen wax dhacaya maaha adeer waxa weeye waxaan ka wada hadlanaa intaan Soomaaliya la gaadhin inaga ka wada hadlanaa wixii garxajis lagu sameeyay ee lagu xalaashaday dhiigiisa ee lagu xalaashaday maalkiisa ee lagu xalaashaday xaqiisa ee lagu hayo wali ee saraakiishiisa ee looga saaray ciidankii la wada samaystay ee ciidankiisa looga saaray iyo cidii dishay cid waliba way taqaanaa godobteeda inaga ka wada hadlana ilaa aynu ka wada hadallo nin oran kara meel baa caynkan iyo waxana caynkan iyo waxana caynkana dhici maysa adara ku riyoonina hadalkan maanta u baxay waa hadalka weeye fariintaasan diraya maanta keliyana maaha asbuucan waxaan wadayaa informationka feedbackiisana waan sugayaa ummadda garxajisna waxaan leeyahay war yaan jahada laydinka duwin oo laydin jahawareerinin oon kalba wax laydinku sheekaynin oon kalba wax laydin odhanin ee xaqiinna u soo jeesta oo waddankiinna iyo dhulkiinna iyo khayraadka ilaahaydiisa iyo ku xisaabtama oo inanka yaree caqligaaga caayaya amba inamada yaree caqligaaga caayaya laydin soo dirayo ka faa'iidaysto oo iska diido oo ilaa iyagoo kalaadkiine iyagana u sheega inaanay suuro gelin waxaasi intaas baan idinku yeedhay saaka inaan idin faro waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka boqor Raabi ayaa imanaya xilli toddobaadyadii ugu dambeeyay ay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ay sheegeen inay xaq u leeyihiin lagu daro wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ay xuseen inay kala maarmi karin dadka Soomaaliyeed